هذا مخرب واي ياركي شرم بينه السلام أفتقي وعلى أفتي لمبرونا تهي النظر لا يبلا تهي وفا أركن ولا مغلنا تهي معجزة تهي ما شاء الله عسي شرف كنا ولو أبتي معاني ده قفور وين ولا على قفور وين كدو ما يقولي جدي قفور وين كلام أمنا حسوا وادريمي كرتان قفور وين قولوا مركو قدمو قفور وين كلام أمنا حضو لكن قفور يرت مركي يقولوا قدمو قفور يرت كراوي على عشان مركي على المهم غير قفور وينه يا غير قفور يراين لها ساعة لقى بلابو صومالي والله وترار يتشلع قفور يا قفور وين قفور وكان هرونا ديلا أصلاً كي أنت أقاس أنا بالسودان نعمر كان ناكتر ليه هي فرتون بالبلار كان كلها هذايا بالبلار كوالو جو قرينا يا وقفور ويني أنا هبت كوشي جيا بالبلار كلو جو شيء معها بوديها هي بدر يناسها بالبلار كلو جو شيء وأصلاً كان لابد بخار لأج يأفكن marka fartan balbalaarka waxaan ku leeyahay bishii rabadaan bad ilaahay umadiisa ka xisoon weeday oo ninkaaga isaga kula hadlay nin kale aad la hadlay lagu gufray gurigaagii baa dumay guri kale ha duminina ka har catoos iyo xaaskiisa catoos iyo xaaskiisa ka har عطاش وحو كيري شرعي أيام كوكلا بحين أمان تهدر كود بيسي مسوالنا وحو يري إما هذا هو إذا تقول كذا أنا قد عودي نعم مسوال كفور يري نقفر السمبل هل مرة كوكسو هندسو ده سنجلا سنك كسر عمس كحد كجرا أيا كريدي كرايا والله كارو إنه مالوين كارو إنه كارو كتير لجمودية مرة كلمة هذا كفور وين تا كبت هذا النوم حرنتو وعدد صوماليين وعدد صومالية وعدد أسر كود في عينها وعدد شقيستا وعدد بيرلية وعدد رجودنا وحاب أذق من قصة ما شاء الله جيك خرج وقرنا جان مرة المهم فرتون بالبلاركا دادك هكهر استاجن إرسقودا هنكون رادين إرسق كله وحتى هاي قفور وينتا ناقتا ugu caansan قفور وينتا naagahooda naagta ugu caansan waxa laga rabay inaad garab siisid قفور weyntiina oo aad soo dhaweysid oo aad tiraahdo welcome ana قفور weyna inaga soo horeeyay media ina keena ma ahayn inaad ka hinaastid قفور weynta ku soo biirtay social media ee timid maanta xogaa ka in yar yar aan noqotay marka adiga lagu bartay shalay toole قفور weyn balbalaad la yiri oo media ku jirta ama ay keeni waayaan in iyagu ay u xiran yihiin marka hawshii saasay ku soo dhamaanaysaa maanta laba shay ayaad maqli doontaan ama dadkaasi raali gelin ayay bixin doonaan miidiyaha ama jeelka ayay tagi doonaan arintuna waa inta aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa qaran oo iyaduna aad iyo aad hawsheeda dhankeeda ka waday waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa Shiina Culay Muuna Aadan dhammaan dadka hawlahan la qabtay aad iyo aad ay u mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waa caadi wax dhibaato ma jiraan ina taayar dad ayaa ugu talagalay in lacag u ururiyaan iyaguna qayb qaataan iyadana qayb ay siiyaan wadanka ka saaraan balse taasi ma dhicin waan ka hortagnay waanan qabanay aadna wad ugu mahadsantihiin dadkiina la shaqeeyay dadkaygii aad iyo فضل نوصار صبس خراب راهي خير هاكوسي وحده دغال ku faraxday rahay hakusi ku soo bir xaq soo TV ana wararkii ugu dambeeyay oo hadda soo dhacay ayaan ka dabageeraya sida halka ku aragto warkii horeba war soo dhaaf farxiyo kaba yara oo muddo 2 sanadood baraha bulshada ka maqnayd oo dib soo noqotay ayaa taageero weyn u muushisay fanaanka yar ee waxa weeye la holin la yahay Sharma Boy oo noqday fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu degdega badan ee waxa weeye maanta u haysta waxa ay garab weyn siisay fanaankan yar ee waxa weeye sida quruxda badan waxa weeyaan baraha bulshada iyo heesihiisa quruxda badan ee raabka ah waa sida ay sheegtay farxiyo kaba yare oo muddo 2 sanadood ah aan muuqaal laga arag muuqaalo baraheeda bulshada ama aan oran karno muuqaalo baraha bulshada lagu soo baahiyay sida aad arkayso farxiyo kaba yare oo sheegtay inuu Sharma Boy cadow badan leeyahay ayay tiri dhegna sharaq hawsi fanaanka kaliya ee maanta ay xiiseeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed 100% waa kuma fanaanka maanta heesihiisu halka labada maalin ay wax weeyaan halka milyan madaxa ka soo xidheen lama soo helayo waa Sharma Boy isagoo oo waxa weey garabsanaya maslax mideeye ay waliba hadda soo wadaan heestii oo muuqaal ah heestii ma fahmin oo muuqaal ah baa dabka soo saara farxiyo kaba yara aad ugu amaantay
wiilka yar ee dhalinyarada reer muqdisho intay is urursadeen ay iska soo dhex saareen sharmaboy oo xoogsata ahaa ayaa maanta aad arkaysa inuu yahay fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda ugu daawashada faraha badan leh weliba marka sida degdeg ah laga eego lama soo helayo fanaan waxa weeye la tartami kara maanta markaan run ka hadalno adigaagan daawanaya waa fanaanka sharmaboy la tartami kara fanaaniin badan baa heesa soo qaada oo waxa weeye laga yaabaa inay bil 1 milyan ku gaadhaan ama waxa weeye wiig oo kale balse sharmaboy waa fanaanka waxa weeye bishii soo saara 3 heesood ama 4 heesood ee 4 milyan ay madaxa ka soo xidhaan waa fanaanka kaliya ee waxa weeye maanta 90% ay dhalinyaradu dhageysato meel walba oo dhulka Soomaalida ka mid ah waxa ka baxaya heesaha sharmaboy gaadiid walba oo safara meel walba uu qof ku sugan yahay sharmaboy baa ka baxaysa lama soo helayo waxa weeyaan shimbir loo soo diray bay farxiyo kaba yara dadka Soomaaliyeed sida halka ku aragto waxa weeye Muniira hooyadeed oo muuqaal soo duubtay muuqaalo yaab leh baraha bulshada qabsaday waa Muniira yar hooyadeed ay lacagahi ka xidhay waa Muniira yar hooyadeed ay iska hortaagtay inaan wax caawimaad loo muushin balse dad geesiyaal oo Soomaaliyeed oo fara badan ayaa waxa weeyaan waxa aqbali waayay oo si toos ah ugu shubaya oo waxa weeyaan ay sheegeen inay isgarab taagayaan Muniira yar hooyadeed waxa ay sheegtay inay eriday inaanay ka qaban markay wacdo oo muuqaalo ay soo duubteen soo qaadan karin iyadoo wacaysa oo ay ku sharsharayso waadiga arkay ma daawatay muuqaaladan runtii caloosha ayaa ku wareegaysa haddaba hooyadeed maxay sidan inanteeda ugu samaysay kullay waa Muniira yar oo maanta dulmana noqotay iyadoo sheegtay inay xidhaysaba gebigeedaba ay xabsi u taxaabayso runtii wax murugo badan weeyaan gabadh hooyadeed intay eriday maantana Hargeysa iyo waxa weeye wadan ay laba wadan ay ku kala nool yihiin aad arkayso sida waxa weeye ay u calool wareejinayso balse dadka Soomaaliyeed waxa ma dhageysan waxay yiraahdeen waan caawinaynaa Muniira yar wararkeena maanta ugu doorka roon leh waxa weeyaan sheekaynayna hadda wiil yar xagga bayna ka dhimasay bal xagga xoog biyo xasan waxba loola harin xamdig halka calo gaari kala degtay fartuun balbalaarka inantii xamdig halka carahayd oo waxa weeye karbaash hooyo ku go'ah waxa weeye hawada u soo marisay fartuun balbalaarka oo waxa weeye waxba loola harin kullay sababta waa iska dareemaysaa oo waxa weeyaan atooshar ay shalay weerar ku qaaday waxa weeye fartuun balbalaarka oo ay xafiiskiisa waxa weeye kula soo dagaalantay sida halka ku aragto waxa weeye Aabe Axmed oo ku sugan deegaano hoostaga magaalada Burco wuxuu ka codsanayaa inaad caawiso halkan kala xiriir waxaad u awoodana u dir aabahan oo haysta waxa weeye 2 caruur ah oo aan awoodin wax maanta kullay muuqaalo hore soo duubay balse fadlan halka kala xiriir waxaad u awoodana halka ugu dir ma soo qaadan karayna muuqaalka 2 caruur oo ka xanuunsan buu haysta wuxuu yiri waxaan u baahanahay inay dadkayga maanta cid kale ima maqna waxa weeye qof kasta oo wax Ilaahay u dhiibay iyo qof kasta oo jecel inuu qof sadaqadaysto walaalkii ah runtii weena ku baxaysa adiguna wax wanaagsan baad helaysa haddaad hal u dirto imisaad u awoodaa ma 100 baad u awoodaa ma 50 baad u awoodaa 10 60 70 100 hal haddaad macaru dirto wax wanaag hal haddaad u dirto Ilaahay kunbuu adigana kaaga dhigay sadaqadu waxa weeyaan waxa u wanaagsan ee dadka muxsiniinta ay baxsadaan haddaba adiguna waxa weeye ka qayb qaado oo sadaqa baxso si wax waliba ay kugu hagaagaan sida halka ku aragto waxa weeye waa wiil waxa weeye walaashi la dardaarmay sideen ognahay baraha TikTok waxa ruxay badda shawle lugta shugta culus la dardaarma mida ku sheegaa waxay tahay horta mida kor ilaa ala kacabsi ilaa kugu leh laakiin adoo TikTok kaniinaayo hadaa arko horta dumaniikisid qof fiican aad tahay sida iskaga soo laakiin adoo wax wareejinaayo dawi iyo jeejeesanayo waxaas daa kugu arko waa igu wallahi billah tallah kooma toos galeen oo ku sheegan kooma caadi ah galeen halka ana ninkii la dalad midahay kooma galeen hadda waa ku sheegan qof aad ka amar qaadanayna mana TikTok dhaqan xumada taalaweebu wuxda ana kala yaabay dad aqaan caadi isku naqaan waxa ku arkaa TikTok ayadoo wax luxayaan هاي قبلها أو سروحها يا ويلاش وشان هذا
iga dulqaad badan wala kuwaas dadka miluu mal dalan yaa islee adaa ku arka markaa ku arkay war noo taala adaa ku arko waa ahaato hadda ku sheegaan muuqaalo gabdha Soomaaliyeed ay soo doobaan ku aragtay oo waxa weeyaan saa loo wareeshinayo kullay markay abkan soo baxay lama aqoon waxan oo waxaaba la oran jiray gabadha iyadoo wareeshinaysa baraha bulshada ee kala lagu arko inantii heblaaye ahayd maanta waxaan ku shugta culus muuqaal baa laga duubay inantii hadda waa inan wareeshinaysa oo kaliya ayaaba la oran jirayba inantii heblaaye ahayd ilaa dadku way wada garanayaan inantii heblaaye ahayd yaa muuqaalka ka duubay maantana markaa saa u gashaba waxa ka soo horbaxaya wax aynan halkan ku soo bandhigi karin sida halkaa ku aragto waa wiil Soomaaliyeed oo walaashii la dardaarmayo oo sheegay muuqaaladeeda haddii maalin damba uu ku arko lay muuqaalo waxa weeye ay wareeshinayso kuma jiraan balse si yaroo qaab kala ah bay wax u soo duubtay inantaas balse walaalkeed wuu uga digay wuxuu yiri maanta ka dambaysa muuqaaladaada iska soo duuba buu yiri balse wax wareeshina kuma arki karo dhaar buu ku maray haddii uu maalin kale ku arko waxa weeye inay isugu iman doonaan halkii loo badnaa iyo halkii loo hajaamayay wararka ajaab kale faraqayn doona waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhamaad ila socod ay ku soconay fanaanada caanka ee Farxiyo Kaba Yare oo aan la arag meel ay shaaniga cirib dhigtay iyadoo waxa weeyaan macaal markii baraha bulshada sida dadka aan ognahay in halka ku sheegi karin ama ay nidhaahna ilka casaqays iyo Naciima Shookar iyo Daahir Calasow oo waliba xataa Naciima Shookar mar gashay ay istiri kaga soo hadlay waxa weeyaan Farxiyo Kaba Yare weynagii ogeyn inay qoraal soo qortay ay tiri waxa weey bows baa ka garay sanadka 2020 inaan dad xagxagto mana inaan arag meeray Farxiyo Kaba Yare dad ku xagxaganayso haddana waa lagu dhamaaday cid kastaba ha ahaatee dad fara badan baa ku dhamaado isiri kaga soo hadlaya sideen ognahay Farxiyo Kaba Yare ayaa berigii hore ahayd dambas dhuxul ku hoos jirta ku daare maayaha idaare weynagii ogeena haddii qof waxa weeye ku yara neefsado iska daa wax kale oo waati iyadoo afartaba saa u qaadaysa oo duuraysa waxa weeye markiiba muuqaal soo duubi jirta balse lama arag 2 sanadood meel ay martay Farxiyo Kaba Yare muuqaalo fara badan oo baraha bulshada ay ku soo duubi jirtay waxa iska ahaayeen muuqaalo yaryar oo nolosheeda ku saabsan oo waxa weeyaan iyada u khaas balse hadda muuqaalkii ugu horeeyay ee ay soo duubayso wadaga arkaya Sharma Boy oo aad arkayso ayna kulli markaan si kala u eegno fanaaniintu waa inay mar walba istaageeraan waa fanaanad weyn oo waxa weeyaan ruuq cadaayada imaka aan oran karno fanaaniinteena shooga kuwa ruuq cadaayada ah bay ka mid tahay marbay Farxiyo Kaba Yare ahayd sida Sharma Boy oo kale maanta ugu horeeyo bulshada fanaaniinta Soomaaliyeed sidaas aawadeed Farxiyo Kaba Yare wadaga arkaya sida u taageertay Sharma Boy oo dhalinyarada reer Muqdisho ay soo saareen cid kalena soomay saar yaa soo saaray Sharma Boy waxaan ognahay Sharma Boy inuu Xasan Toob muuqaalo uu ka soo duubi jiray mararka qaar isaga oo aan la garanayn inuu fanaan yahay waqti bay shiri jirtay 2019 waliba meeraha sayid baan maraynay Xasan Toob ayay muuqaalo soo wada duubi jireen yaryar oo iska kaftana heestii ugu horeysay oo qaaday waxay ahayd hees uu kaynaan lahaa baan maraynay balse maanta halkay maraysaa maan fahmin bay sheekadu maraysaa oo laga sugayo muuqaalkii u dambeeyay inay soo wadaan oo waliba aan wali soo bixin oo gacanta ay ku hayaan sidaas aawadeed bay Farxiyo Kaba Yare ugu dhiirigelinaysaa inuu hamigiisa hore oo sii socdo balse dad baa yiri Sharma Boy fanka waa iskaga baxay ma Sharma Boy baa fanka ka bixi kara hadduu Sharma Boy ka baxo yaa u soo haraya fanaaniinta kulli fanaanimada wax la amaana maaha balse maanta waxa la marayaa dunia casriya waa sida ay sheegayso Farxiyo Kaba Yare aynu ugu soo hal qabsan karno oo ay aad u taageersan sidoo kale dhacdada murugta badan ayaa ah inay Muniira Yar maanta Hargeysa ku dulman tahay haddaba reer Hargeysa meeye waa reer Hargeysa maxay idin ku dhacay inantii Muniira Yar idinkayda nooshahay maanta Muniira Yar weedinka arkay sida baraha bulshada loo wareejinayo Muniira Yar waa gabar xanuunsan oo muuqaal soo duubtay oo hooyadeed ay iska hortaagtay in lacag loo diro fadlan waxaan leenahay reer Hargeysa waa inay isgarab taagaan oo inanta waxa weey Hargeysa ku nool la ogaado oo loo tago
oo waxa weeye dhakhtarra la geeyo oo lasoo ogaado sida xanuunkeeda uu yahay waa muniiro yar oo hooyadeed marka ay wacdo ay ku dhigaysa markiiba haddana hooyadeed ay leedahay waxaan rabaaba inaan xidho oo ay wax kala saa u daldalaysa aan la garanayn fadlan waxaan leenahay aan iskarab taagan walaasheen muniiro yar oo weli loo wada waxa weeye qaaraan fara badan si waxa weeyaan loo dabiibo waxaan hore ka mid ah waxa soo hortiif uguna kaaray halkan wararkii ugu dambeeyay oo